مدن مدحويني waxa salaanta loo diyaara cutubya ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya tan iskaaga bari ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u salaamayaa ciidanka qaranka meeru joogaba iyo jiida hore aaga bari xaruntiisa oo aan maanta joognana aad baan idin salaamaya waa marka koobaad waxaynu isla qirsanahay adduunkuna uu qirsan yahay noloshuna ay si cad u tilmaamaysaa bini aadamka meeru joogaba qaranku haddii aanu lahayn ciidan adag oo cadowga daafaca inuu qarankaasi yahay hilib bisil oo bisaduhun cuni karaan iskaba dhaaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu u diraa oo uu dhibireeyaa ma adduunka oo dhan waxaa la ogyahay horumarka oo caalamku sameeyo marka hore waxaa lagu sameeyaa meel nabada oo dayr adiga ku xidhan yahay ciidamadu dal kasta iyo adduunkaba waxay yihiin dayrka adag ee ummad kasta halka ay joogto bahalaha ka ilaaliya ee cadowga ka qabta mar labaadka tiknoolajiyada adduunka u horumartay oo dhan boqolkiiba 80 waxa soo saaray oo hal abuuray ciidamo may abuurin dad shacibihi tijaabo kasta oo adag oo la tijaabiyo ilaa dayaxa la degayo ilaa cilmiga maamulka ee maanta adduunka lagu maamulo ee looga baxa kulliyadaha PhD lagu qaatay waa siyaasadda iyo waa maamulka dhammaantood waxaa laga soo dheegay waaya aragnimada ciidamada iyo caalamka iyo dalkooda ciidan waliba inay u dejiyeen wax laga dhaxlay oo ah cilmi dhan walba saameeya science iyo maamul iyo hab dhaqaalaba ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aan qiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqo ah iyaga oo aad dawlad aan la ixtiraafsanaan oo dagaal dheer halgan dheer oo isna ka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore wax dhisano oo aan meel istaagno in cadowgii aanu maalin qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markhaati madoona ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeysay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u halgamaya iyo kuwiina maanta xilka culus qaranka u hayaba dhammaantood waxa la qirayaa inay yihiin haliyeeye noloshooda u hibeeyay inta kale inay nabad gasho oo hore u marto oo dadka in yar yeeli karto idinka waarin maayo rag halka jooga doolal baa kamid ah oo isku daahan isku dhowrahay 40 sanana isagoo da'daasa isaga rag badan oo kale oo halka taagan oo hebel badana dhammaantood ay dib jirka ahaayeen oo ay qaranka u taagnaayeen oo aanay malaha maalin oo dhan xanuunsanaya meel baan tagaya mujaahidiinta waxa faraysan inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliya dawlad xor ah oo aanay ka daba qaybinayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daalayno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u danaynaya in kuwa aqoonta aabashad ku dhinteen idinka horeeyeen nin daryeelaya kama daalayno waa hawl Ilaahay idin diray ninkaas kaliya Ilaahay baa u diray waa karti idin dhisay dee quraanka waa wada akhriyaan culimaduna way ogtahay
inta badan waxa ku soo noqonada inta badan waxa ma garanayaan inta badan ma fahmayaan inta badan ma fikirayaan inta fikiraysa waa inta danta qaranka meelu ka difaacaya ama cilmiga ku daafaco ama xoog ku daafaco ama arrin ku daaface hadda intiiba koobsateen oo dadkii fidiye maamulka ahaydeen dadkii heshiisiye ahaydeen kuwii naftooda horay ahaydeen maantana intaynaan halkaa yoolkeena gaarin wixii caqli leh wixii wadanimo leh wixii garasho ilaahay inuu ku abuuray wuxuu heegan u ahaanayaa difaaca qaranka ilaa New York ka gaarno marka geedigii halganku wuu socdaa mana istaagaya ilaa aynu guusheena gaarno aad iyo aad buu ciidanku ku dhaadanayaa waxaad ka dareentaan maanta 10 sano ka hor 10 sano ka hor dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxda iyo kuwa suuqa jooga kumay xaragoon jireen oo kumay faari jireen in askari noqdaan maanta inanka iska dhaabay gabdhaha jaamacadda ka baxaya waxay diyaar u yihiin inay qori qaataan oo ciidankooda daafacaan waana tababar iyo aqoon iyo dal jacaylnimo dadkiina gaarsiiseen waxa hubaala oo halkan ay fadhiyaan haddaan aabayaasheeda weydiiyo inaa u badan tihiin kuwii aabayaashood naftooda dalka u hureen ee awayaashood u hureen haddaan boqolkiiba idin weydiiyo waxaa laga yaabaa boqolkiiba 50 inay kuwaa yihiin waa sababtaan u leeyahay ilaahay dadka qaar buu u diraa in naftooda huraan dalkooda kuwa kale ku noolaada inta kale maxaa ku waajibay Soomaaliland waxa ku waajibay Soomaaliland kalena inay caqligooda iyo maankooda galiyaan kuwa nolosha raaxada la jecel kuwa qoyskooda qura ka fakira kuwa lafahooda qura la carara in aanay noloshaasi soconayn ee ay ka soo qayb qaataan qalbi iyo quwad iyo cudud iyo codba kuwa naftooda u horeeyay isaga garab taagan هذا دجالكم مركو صعود دجالكم ودجال إلا جوش الجرار ما دباضه قبل بنا قبل مالين وحويكوا جاراني قبل يرقوا مالين وحكر عاني ما هاو وحلين هذا وحوار عين قاد كروك خدع دورة كوا كلام نجاري دورنا إلا أي نجارنا السومال لا دور دن قرن مدي نحن كيلو تيلا هلنا تاسن وضنا وحردكوا هم بلينا يا كيسجا وحردكوا هم بلينا يا نفتينا أو سين قرن كوده waxaan u habaryeeraa in maanta dadkiina gaarsiiseen in ciidamada qaranka igu dar oo dhammaan dhalinyarada maanta dalka joogtaa nin waliba uu deydaayo meeshii uu ka galaa ciidanka qaranka hadduu jaamacad ka baxay iyo hadduu farsamo yaqaan yahay hadduu xoolihiisa raacanayo waxyaalaha maanta cadowga huwanta soo raacinaya waxaan uga jawaabayaa nin baa gabiyo wuxuu yidhi mar haddaan cududayda ku ciil baxi karaayo mar haddaan cagahayga ku caraabi karaayo mar haddaan carabkayga colaadda ku dhaafo waxba yahay calacalin Soomaaliya taasay leedahay maanta aad iyo aad baan ku hadaqaynaa waad ku dhaadanaynaa waana dhiirigeliseen dadkiina waa daba joogaa wixii qalacdana waa saxanaynaa cadowgeena in kasta ay soo ururiyo inagu ma ka adag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh